kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 437 ee barnaamijka tubta nabadda oo idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. mahadsanid Faisa. toddobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo ku saabsan haweenka ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed. aad iyo aad Cabdi Casiis, waa mowduuc aad muhiim u ah. sida lagu sheegay warbixin ku saabsaneed caruurtii colaadaha hubeysan ee Soomaaliya uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 2022. ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasay bishii November ee sanadkii 2020 inay ahaayeen 16,813 ruux, kuwaasoo isugu jiray booliska federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada. waa sax Faisa, isla sanadkii 2020 warbixin ay soo saartay hay-adda UNDP waxaa lagu sheegay in tiro ka hooseysa 10% ay haweenka Soomaaliyeed ka yihiin ciidamada booliska Soomaaliyeed. inkastoo ay adag tahay in la xuso tirada dhabta ah ee haweenka ka tirsan ciidanka booliska, haddana waxaa cad in tiro ahaan ay aad u yar yihiin haweenka ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. waa xaqiiqo adag, gaar ahaan marka la eego saamaynta wanaagsan ee ay soo kordhiyeen haweenka Soomaaliyeed ee ku biiray ciidamada booliska Soomaaliyeed. waxay door wanaagsan ka ciyaarayaan inay meesha ka saaraan caqabado muddo soo taagnaa. waxay wax ka qabanayaan kiisaska xasaasiga ah ee ku saabsan dhanka jinsiga, waxayna dhisayaan kalsoonida bulshada ay u adeegaan. aad iyo aad haweenkani waxay sidoo kale hormuud ka yihiin maareynta kiisaska ku lugta leh caruurta iyo haweenka, iyagoo muujinaya adkeysi xoogan. inkastoo ay jiraan caqabadaha dhaqanka iyo kuwa bulshada, in haween badan ay ku biiraan ciidanka booliiska ma hagaajinayso oo keliya xiriirka bulshada, balse waxay sidoo kale xaqiijinaysaa in qof kasta uu helo adeegyada booliiska. nasiib wanaag, waxaa socda dadaallo agaasiman oo arrintan lagu hagaajinayo. dowladda oo kaashanaysa bahwadaagta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxay si firfircoon uga shaqaynaysaa inay kordhiso matalaadda haweenka ee ciidamada booliska Soomaaliyeed. waa sax Cabdi Casiis, bahwadaagta caalamiga ah iyaguna si firfircoon ayay arrintan uga shaqaynayaan. tusaale ahaan, booliiska UNTMIS wuxuu u xil saaran yahay inuu u qareemo in haween badan ay ka mid noqdaan ciidanka booliiska, iyadoo la aqoonsanayo kaalinta ay ka qaadanayaan abuurista adeeg booliis oo ay helaan bulshada Soomaaliyeed. haddaba si aan arrintan uga sii hadalno, waxaa istuudiyaha nagula sugan Baby Familia, la taliyaha arrimaha booliska ee UNTMIS, iyo Dhamme Faaduma Cabduqaadir Cali oo booliiska dowlad goboleedka Puntland u qaabilsan arrimaha haweenka. soo dhowaada labadiinuba. Baby, haddii aan adiga kugu bilaabo, dalka Soomaaliya haweenka ka tirsan booliska waxay door muhiim ah ka ciyaarayaan hagaajinta tayada adeegga ciidamada booliska, gaar ahaan dhinacyada badqabka iyo kalsoonida bulshada. haddaba maxaad nooga sheegi kartaa saamaynta ay haweenkani ku leeyihiin adeegyada booliska Soomaaliyeed uu gaarsiiyo bulshada? Somali women police, they play very important roles to enhance the effectiveness of policing. haweenka ka tirsan booliiska Soomaaliya waxay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan hagaajinta adeegyada booliiska, gaar ahaan badbaadada iyo kalsoonida bulshada. wax badan ayay soo kordhiyeen. tusaale ahaan, haweenka booliiska ah waxay dadku u arkaan inay yihiin kuwo naxariis badan oo daacad ah, taasoo horseedaysa xiriirka hagaagsan ee u dhexeeya bulshada iyo booliiska. sidoo kale waxaa jira haween badan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo ka howlgala waaxyaha bulsho booliiseynta iyo haweenka, kuwaasoo u xil saaran agaasinka iyo isku xirka bulshada iyo booliiska, iyo sidoo kale baaritaanada falalka iyo tacdiyadaha ka dhanka ah haweenka, si loo xaqiijiyo in kuwa ka badbaaday tacdiyada ay kalsooni dareemaan marka ay soo tabinayaan kiisaska. arrintani waa mid dhisaysa kalsoonida booliiska iyo bulshada. intaasi waxaa dheer in ka mid noqoshada haweenka ee booliiska ay tusaale u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee doonaya inay ku biiraan booliiska. ku biirista gabdhaha ee booliiska waxay soo kordhin kartaa qaabab cusub oo ku aadan adeega booliiska, taasoo keenaysa xal guud oo wax ku ool ah. waxaan aaminsanahay in dadaalka haweenku uu yahay mid saameyn leh, gaar ahaan marka lasoo tabinayo kiisaska tacadiyada dumarka. laakiin waxaa xusid mudan in kiisaska lasoo gaarsiiyo booliiska ay ka yar yihiin kuwa dhaca. haweenka Soomaaliyeed ee booliiska ah waxay ku dhiirigelinayaan bulshada inay booliiska ku soo wargeliyaan kiisaska tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha. waxay haweenka booliiska ah ka qayb galaan barnaamijyada raadiyaha ee wacyigelinta si bulshada loogu dhiirigeliyo inay soo tabiyaan kiisaska kala duwan ee tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha. For example, they also always involved in our radio programs regarding GBV awareness
to call the community to report GBV cases. sidee ayay qaramada midoobay u taageeraysaa dadaalada xoojinta awoodsiinta iyo dhisidda karaanka haweenka ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed? maxayse yihiin barnaamijyada waxtarka leh ee aad hirgeliseen? Yes, we at Miss Police, we support the empowerment and capacity building for Somali women police officers at both FGS and waxaan taageernaa dhisidda awooddii karaanka haweenka Soomaaliyeed ee ka tirsan booliiska Soomaaliyeed, ha ahaatee heerka dowladda federaalka ah ama heerka dowlad goboleedka ah, annagoo siina tababaro lagu kordhinaya aqoontooda. waxaan qabanay tababaro ku saabsan arrimaha sinaanta jinsiga, bulsho booliisiinta iyo wacyigelinta tacadiyada jinsiga ku saleysan. waxaa ka mid ah tababaradaasi mid ku saabsan sinaanta jinsiga oo aan ku qabanay Galmudug, mid ku saabsan istiraatiijiga jinsiga oo aan ku qabanay Puntland. sidoo kale waxaan qabanay aqoon isweydaarsi ku saabsan wacyigelinta tacadiyada jinsiga ku saleysan iyo bulsho booliisiinta, kuwaas oo aan ku qabanay Jubbaland iyo Hirshabeelle. waxaan sidoo kale Puntland ku qabanay siminaar ku saabsan maareynta goobta tacadiyada jinsiga ku saleysan iyo baaritaanada. Jubbaland iyadana waxaan ku qabanay siminaar ku saabsan maareynta kiisaska tacadiyada galmada ee jinsiga ku saleysan. dhammaan tababaradan waxaa ka qayb galay xubno ka socday booliiska Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar. waxaan sidoo kale sameynay barnaamijyo booqasho ah oo lagu xoojinayo aqoonta dumarka ka tirsan booliiska Soomaaliyeed, iyadoo la siinayo tababaro iyo xirfado lagu xoojinayo xirfadahooda, gaar ahaan xalinta dhibaatooyinka, qorista warbixinada, hoggaanka iyo xiriirka. dhammaan barnaamijyadani waa kuwo hagaajinaya aqoonta iyo xirfadaha booliiska, iyadoo rajadu ay tahay in la hirgeliyo si loo hagaajiyo adeega la siinayo bulshada Soomaaliyeed iyo hagaajinta matalaadda iyo shaqo wanaagga booliiska dhexdiisa ah. booliiska UNTMIS waxaa ka go'an xoojinta matalaadda ragga iyo dumarka ee booliiska dhexdiisa ah iyo hirgelinta nidaamka taageeraya shaqada booliiska si waafaqsan howlaha naloo egmaday. And also the implementation of supportive networks and training programs. And again, as I mentioned before, it's aligned with our mandate. ugu dambayn, ma noo sharaxi kartaa qaar ka mid a tallaabooyinka qaramada midoobay taageerto ee wax looga qabanayo caqabadaha ay wajahayaan haweenka ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed? Yes, we have established the Women in Uniform Network for Somali. booliiska UNTMIS wuxuu aasaasay dallad ay ku midaysan yihiin haweenka Soomaaliyeed ee ka tirsan booliiska, dacwad oogayaasha, saraakiisha xabsiyada, maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. dalladahan waxay noqdeen madal aan uga hadalna caqabadaha taagan iyo fursadaha kor loogu qaadayo awoodsiinta haweenka iyo sidoo kale istiraatiijiyadaha lagu xalinayo caqabadaha taagan. intaas waxaa dheer matalaad la'aanta haweenka heerka hogaaminta oo iyaduna caqabad ah, gaar ahaan heerka dowlad goboleedka. UNTMIS waxay sii wadi doontaa inay u qareento haweenka Soomaaliyeed in loo magacaabo xilalkan. ujeedada ugu dambeysa waa in la helo haween ku jira hogaaminta booliiska, isla markaasna la xaqiijiyo in codadkooda la maqlo xiliyada go'aan gaarista, iyadoo la xoojinayo sinaanta jinsiga booliiska dhexdiisa. And ensure that their voices are heard in decision-making processes by promoting this gender equality within the Somali police. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Baby Familia, la taliyaha arrimaha booliska UNTMIS oo marti noogu ahayd barnaamijka Tubta Nabadda. welina dhegeystayaal, waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka Tubta Nabadda, balse iminka aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Dhamma Faadumo Cabduqaadir Cali oo booliiska dowlad goboleedka Puntland u qaabilsan arrimaha haweenka. waxay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan sida ku biirista haweenka ee ciidanka booliisku u saameyso xiriirka bulshada iyo booliiska. markii aan Puntland ka fiiriyo dhankeeda waxay ahayd wax aad iyo aad loogu riyaaqay oo wax badan wax ka qabatay xalisa khilaafaadkii ka jiray bulshada iyo booliiska dhexdiisa, sidoo kalena kor u qaaday in uu noqdo adeega booliisku bixinay mid tayo leh. waxaa jirtay in booliisku uu ahaan in loo arkayay meel rag keliya ay ka shaqeeyaan, bulshadu u arkayeen booliisku marmarka qaarkood inay ayaguba ay caqabad ku yihiin, in maxaan ku sheegay adeegyada booliisku bixiyo ay tahay inay lacag bixiyaan, information fiican aanay ka haysan. markii Puntland la abuuray hoggaanka booliisinta bulshada kadib, shirar badan la qabanqaabiyo booliiska bulshada dhexdooda ah, waxaa halka ka timi isfaham
waxaa jiri jirtay xilligii hore in tacdiyada ka dhanka jinsiga aanay kusoo haweenku aanay kusoo dhiiran haweenka dhibanayaasha u ahay aanay kusoo dhiiran inay booliiska u dacwoodaan hase ahaatee hadda xilligan la joogo aad iyo aad maaragta looga sameeyey horumar waxaana tusaale ku ah in ay dhacdo in maxaan kuu sheegaa gabar yar kiis ka dhacay puntland gabar yar in la kufsado uu kufsado qof faamiligeeda ah faamiliga dhammaan ay doonayeen kiiska inay qariyaan hase ahaatee hooyada gabadha dhashay waxay doonaysay in aanay kiiska qarin waayo waxay fahamsanayd in ay haddii ay booliiska u dacwooto xogteedu ay ahaanayso mid sir ah in booliiska marka timaado ay ugu imaanayso gabar oo macnaha ay u sheegi karto secret macnaha waxa iyada ay ceeb ku dareemayso bulshada aanay doonayn in la wadaagto ay waxay ku kalsooneed inay booliiska usoo dacwooto saas daraadeed kiiskii waxaa lagu dhameeyey gabadha faamiligooda dhan iyadoo kasoo horjeedaan inay hooyadu noo timi oo booliiska u timi sidaasna aanu kiiskii maxkamad ku geynay dheecaankii looga qaaday laguna guuleystay in ciddii gabadha yar u geysatay tacadiga lagula xisaabtamo maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ay la kulmaan haweenka ka tirsan ciidanka booliiska maxayse yihiin tallaabooyinka la qaadaya si wax looga qabto caqabadahaas caqabadaha ugu waaweyn oo haweenka booliiska ku jira ay wajahaan waxa weeye in markii sarkaal booliiska gabadha ay tahay aan loo arkin inay tahay sarkaal booliiska dhexdiisa iyo banaankiisaba ee loo arko inay gabar tahay tusaale ahaan markii ay shaqadeeda ku guda jirto in sarkaalka ragga ah lagu ixtiraamo shaqadiisa iyo uniformka uu xiran yahay gabadha laakiinse aan lagu ixtiraam taasoo ah wax ka imaanaya xagga dhaqanka caqabadaas way wajahaan caqabada labaad wajahaana waxa weeye in markay timaado dalacaad markii ay timaado tababaro markii ay timaado faa'iido kasta ama resourceska booliiska aanay ragga ula sinayn tusaale ahaan haddii dalacaada iyo maxaan ku sheegay tababarada iyo ay ku imaanayaan in uu qofka ragga ee booliiska ku jira uu u raadsado habab aan ahayn kuwo si sharci ah saas daraadeed caqabadahaas bay la kulmaan gabdhuhu waxayna kaga gudbi karaan gabdhaha booliiska ku jira caqabadahaas in la sameeyo habraacyo sharci ah oo lagu dalaco habraacyo sharci ah oo lagu horumariyo shaqaalaha booliiska iyadoo lagu macnaha dadka ka tirsan saraakiisha booliiska iyadoo loo fiirinayo qofka shaqo wanaagiisa lagu abaalmarinayo ee aanay ahayn hab kale inuu qofku ku dalaco ama ku helo tababar ama uu ku helo abaalmarin kale ugu dambeyn maxay yihiin istaraatiijiyadaha la hirgelinayo si kor loogu qaado qorista haween ka mid noqda ciidanka booliiska Soomaaliyeed su-aal fiican weeye waxay ila tahay istaraatiijiyadaha iyo boolisiyada loo baahan yahay in la hormariyo booliiska ama haddii ay jiraan la dhaqan geliyo oo lagu dhaqmo waxa ugu horeeya istaraatiijiyada qorista ciidanka booliiska in ciidanka booliiska markii la qaadanayo uu noqdo mid xor ah oo xalaal ah oo qofku uu kusoo geli karo asagoo aan u soo marin ama aanay kaga xirnayn shardi wuxuu doonaba ha ahaadee rag iyo dumarka u kala exanaya tan labaad oo aan isleeyahay way tahay in maaragtay la dhaqan geliyo waxa weeye in booliiska dhexdiisa laga mamnuuco inuu ka dhici karo wax haraasminti ah nooc kastaba ha ahaatee gabdhuhu waxay kala kulmaan booliiska san su-aasha hore kaga jawaabnayba in dumar ahaan loo arko qofka dumarka ah ee ka shaqeynaya booliiska sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay in la dhaqan geliyo siyaasado lagaga hortegayo in loo arki karo amase habdhaqanka ku salaysan harassment iyo tacadi ka dhana jinsiga in totally waxyaabo mamnuucaya SOPs ama policies lasoo saaro baa laga hortegi karaa sidoo kale in la dhaqan geliyo xeerka booliiska Soomaaliyeed iyo xeerka booliiska dowlad goboleedyada in la dhaqan geliyo oo sarkaalka booliiska ee ku xadgudba sarkaalad booliis ah oo aan u arkin inay tahay qof la siman shaqada siduu meesha uu ka leeyahayna inta uu qaban kara qabanaysa ama waajibaadkiisa mid la mid ah qabanaysa aan u arkin lagula xisaabtamo waxaa kaloo ay tahay in la dhaqan geliyo hanaanka dalacsiinta in loo maro qaab sharci ah oo qofku uu ku helo shaqo wanaagiisa aqoontiisa iyo dadaalkiisa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd
dhamme faadumo cabduqaadir cali oo booliska dowlad goboleedka puntland u qaabilsan arrimaha haweenka oo marti noogu ahayd barnaamijka tubta nabadda balse iminkana dhegaystayaal ku soo dhowaada hees ka hadlaysa muhiimadda wada shaqaynta booliska iyo bulshada oo ay ku luuqaynayso fanaanadda fartuun jamayka. waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubnay heestaasi ku saabsaneyd muhiimadda wada shaqaynta booliiska iyo bulshada waxaa ku luqeynaysay fanaanada fartuun jamayka waxayna ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan.